xiriirada madaxda guddiga Olombikada Soomaaliyeed saxaafadda labada naadi oo galabta halkan ku ciyaaray dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam shirkadda Dahabshiil Group iyo Samtel waxaa sharaf weyn u ah inay taabageliyaan maalintan qiimaha iyo qaayaha leh ee Olympic Day maalinta Olombikada adduunka runtii shirkadda Samtel markii ugu horeysay oo ay taabageliso tartamo noocan amaaha saad la socotaan sanadkii naga dhamaaday 2021 iyo sanadkan 2022 kaba waxay taabagelisay shirkadda Samtel tartamadii ugu xiisaha iyo xamaasadda badnaa uguna qiimaha badnaa wadankan ayadoo kaalin firfircoon ka qaadatay run ahaantii ujeedka shirkadda Samtel ay u taabageliyeen ama ay u dhiirigeliyeen dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa koow ka ah sida aan ognahay dhalinyaradu 70% waxay ka yihiin bulshada Soomaaliyeed taas shirkadda waxay ku dhiirigelisay inay dhiirigeliso dhalinta Soomaaliyeed waxaa kaloo shirkaddu ay taabagelisaa ama ay barbar taagan tahay mar walba qaybaha kala duwan ee bulshada hadday ahaan lahayd waxbarashada isboortiga iyo qaybaha kala duwan oo dhan saad la socotaan bishii hadda naga dhammaatay shirkaddu waxay taabagelisay dugsi weyn oo tababar oo laab weyn oo casriya leh oo ay ugu tala gashay ardayda jaamacadaha ka soo baxa in lagu tareerin gareeyo ujeedka ay intaas u sameeyeen wax kale ma aha inay dhalinta soo baxee kaalinta kaga aadan ay ka qaadato wadanka horumartiisana qayb ay ka noqoto runtii waxaan rabaa inaan halkan hambaliyo uga diro maalinta weyn ee Olombikada adduunka iyo Olombikada Soomaaliyeedba anoo ku hadlaya magaca waxaan leeyahay hambaliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh